anigu shakhsiyan haddii aad weydiin lahayd waa maxay casharka ugu weynaad ka baratay ka Maryam ahaan waxa weeye inaan la guursan adigoon isbaranin. caqabada ugu weyna shakhsiyan anigu markaan dib u qiimeeyo guurarkayga iyo salka barsi ku hayaan dhibaatooyinka qaarna waxa weeye asal qaarna waxa weeye farac. inta badan dadku waxaad moodaa inay faraca ku maareystaan. haddii waxdaad isweydiin weydid dhibaatadani xaggay ka soo aasaasantay meel soko surfaceka ahunbaad ku dul heehaabaysa. marka anigu markaan dib u qiimeeyo halkay wax ka qaldameen maxay hayday dabcan si aan uga taxadiro markii dambe iyo si aan u fahmo barti wax ka qaldameenba waxay salka ku haysaa anigu inaan guursada anigoon iswada baranin. dabcan xoog baan u yaraa 17 sano jiray. maxay hayday bini aadamku tadawur buu samaynayaa. caqliyadaada tadawuraysa oo koraysa, aragtiyahaaga koraya, qofnimadaada koraya. maxay hayday shakhsiyadaada qaybo fara badan oo ka mid ahba korniin iyo isbedel ku imanaya. dabeedna qofka aad wada joogtaan haddii aydan isku jiho u koraynin ama isku xaddi haddaydan u koraynin caqabad baa ka iman karta oo faamligii burbur baa ku iman kara. maxay weliba haddii isla jaanqaad la-aantaas weliba la maareyn kari waayo. marka anigu shakhsiyan haddaan ka hadlo dhibaatadeedu taasii salka ugu badan ku haysay inaan anigoon isfahmin guursaday. tadawur fara badan markaan sameeyeyna aan dadkii weliba qofkii hore tadawurka yani aanu kala jiho weliba noqonay. ma odhanayo islamaanaan jaan qaadin laakiin isna jiho gooriyo u tadawiray. isaga laftarkiisa aad buu yaraa 18 sano iyo badh buu jiray aniguna 17 jir baan ahaa. aniguna dhinac kalan u tadawiray. marka tayadu taasay salka ku haysaa. haddii aan ka hadlo bulshada yani qoysaska burburay badankooda walaahi dhibaatada aniga laftarkeyga haysta in badani way haysataa. waxaan odhan karaa qoysas fara badan way u burburaan. laakiin tani waxay saameynaysaa keliya dadka baraaruga nafeed haysta. qofku haddii aanu naftiisa ku baraarugsaneyn ama aanu waxa gudihiisa ka dhacaya ka warqabeen ama aanu tadawarba samaynaynin dee waa qof iska nool un weeye. marka taasoo kale ma dhibayso. laakiin inuu qofku isfahmaa waxay door ka ciyaaraysa xataa qofkan aad la joogteed xiriirkiinu caynka uu ahaanayo ma wacan yahay mise ma wacna. anu waxaan aaminsana qofku marba marka ka dambeyso isagu isfahamsan yahay isagu ismaareyn karo buu qof kalena maareyn karaa. kelmadda isfahanka maxaad uga jeedaa in qofka ama isbarto ama isfahmo? okay bal noo faahfaahida. waa sax. isfahamku dhinacyo badan buu taabanaya. waxa weeye inuu qofku maaragtay wuxuu jecel yahay wuxuu diido maxay xuduudada u arka inay muhiimka tahay inaan laga soo gudbin. maxay hayday asbaabta maxay hayday bahki xuduudada qaar uu leeyahay asbaabta waxyaabaha qaar uu jeclaysto asbaabta waxyaabaha qaar uu diido. maxay ahayday xamilaadiisa tankiisu intay leeg tahay. cidda uu yahay si guud qofku markuu u fahamsan yahay qof kale wuu la falgeli karaa. markaynu meel fogba aynaan u doonin qofku markuu isfahamsan yahay qof fahmi kara oo maadaama isagu isfahamsan yahay uu isgaranaya cidduu yahay qof la jaan qaaduu raadsanaya oo xulashadii baan ka habaabaynin. laakiin qofka aan isfahamsanayn muxuu cid ku habboon doonama isagii baan fahamsanayn cidda uu yahay. markaana waqti ku qaadanayn qofku hadduu isdhaho bal adigu kor adigu garaadso intaanad guursan miyaan waqti ku qaadanin 30 iyo above miyaan isla gaadhayn? wallaahi korniinka iyo garaadku inta badan da kuma yimaadaan ee tajarubay ku yimaadaan iyo iskudaybay ku yimaadaan. anigu waxaan aaminsana qofku ka iskudayga badan yahay ee uu uga dhiiran yahay nolosha iyo dhinacyo fara badan ka mid ah inuu garaad ahaan uga horkoro dadka kale. mar walba marka ka dambeyso iskudayga iyo tijaabooyinka nololeed dibdhigatid dabcan waqti baa kugu soconaya. xaggaasan anigu ka aaminsanahay da inta badan kuma xidhan laakiin dabcan da'du way wadataa experience-ka iyo garaadka. mar walba waan yidhaahdaa maxay ahayd cawg maanta ugu dambeysay saaxiibadii baan la joogan kusoo degay iyada maasha allah 22 abay guursatay. deedna su-aashaan isweydiinay waxay ahayd goormay kula tahay inay ku habboon tahay in la guursado. masalan waxaan ku yidhi aniga waxay ila tahay waxa ugu wacan tahay habluhu inay guursadaan 29 ilaa 31 inta udhaxaysa. dhaqankeena marka loo eego aad bay u fog tahay laakiin xatana waan sii dabagalnay hadalkiio aniguna waxaan u sheegay asbaabtay saas ila muuqato iyadana kuweeda ii sheegtay. deedna labadeeda asbaabood way iswaafaqeen. yacni qofku xilligaasuu si fiican isku baranayaa xamilaadiisii waxaa laga yaaba qofku markuu yaryahay waxyaaba dhalanteed ah xataa inuu iskaga mashquulsan yahay laakiin xaqiiqada noloshaad fahmaysaa adigaa isfahmaya dhaqankaad fahmaysaa. aniga in fara badan caqabadaha ila soo darsay ahayd waxa weeye inaanan fahmin dhaqanku maxay hayday ujeedooyinka waxyaabaha qaar ay u jiraan. dabeedna waan ka hor iman jiray haddii goor markaas tirahdid dhaqanka ka hor kaale ama yani aad wixii aqbali weydid adaa ku dhibaatoonaya. marka way dhici kartaa qofku inuu isagoo weyn guursado laakiin cala naqal waad garaad guursanaysaa dabeedna waxaa laga yaaba inaan qurux badan baad ku noolaanaysaa biidni illah